xalay nin baa isoo wacay dib weyn buu ii geystay waxaan ku balan qaadayaa buu yiri inaan dib lagu arag wallahi adigaan lagu arkay shabaab umadayni dhag bay ka dhigeen shabaab inaan ka adkaano wallahi waxay ku xiran tahay inaan inta xurowno kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan maxkamadaha dhigana sheekh salaad maxamuud oo loo yaqaan sheekh Shantaay ayaa maalmo ka hor hanjabaad culus u diray dagaalamayaasha ururka al-shabaab isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haatan wuu ooynayaa waxayna al-shabaab isaga soo dhigeen dawladda iyaga oo wacad ku maray inay khaarijin doonaan hanjabaadda ayaa ku soo aadaysa xilli Sheekh Aadan Cabdi Warsame Sheekh Aadan Sunne uu sheegay inay jiraan culimo gaalowday oo dawladda markaasi la socda waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkii la yaabka lahaa ee Sheekh Shantaay uu ugu hanjabay al-shabaab iyo sidoo kale muuqaalkii isagoo ilmeynaya uu soo duubay xalayto haddaba saaxiibayaal aynu ka qayb qaadanno sidii aynu uga qayb qaadan lahayd badbaadinta Sheekh Shantaay alla ayaa wax badbaadshay muuqaalkan like fara badan saara saaxiibayaal si uu u gaado hay'adaha ammaanka Soomaaliya ayna ninkaasi maskiinka ah ee wadaadka ammaankiisa ula wareegaan like fara badan oo ku dhacda muuqaalkan waxay naga caawin kartaa inuu gaaro hay'adaha ammaanka Soomaaliya saaxiibayaal like haddii aad markii kugu horeysana soo booqato waxaan si naxariis kaaga codsanaynaa YouTube-kana subscribe saartid gambalelkana furati kuma hasanid waxba yaana waradin ku daalina saaxiibayaal waxaan la wadaagi doonaa muuqaal la yaab leh Sheekh Shantaay oo cadeeyay in loo hanjabay sidoo kale uu qarka u saaran yahay in la khaarijiyo ee daawasho wacan xalay nin baa isoo wacay dib weyn buu ii geystay wuxuu igu yiri waxa tahay argagixiso waxa leedahay indhaha argagixisada waxaan ku balan qaadayaa buu yiri inaan dib lagu arag wallahi adigaan lagu arkaynin shaatiga dawladnimada ay aad umada ugu cagajugleynayso kitaabka ilaahay ku difaac umada daashay ee mobilada lagu dilaya ee baad laga qaadaya ee ilmahooda asayda loo saarayo ee caruurtooda agoomoweyso shaarka kuwa ku difaac ilaahay baa janno kugu siinaya waxaan rabaa inaan umada u sheego anigu meelaan ka naqdo ma joogi waxaan baraha bulshada u galay umada muslimka inay kitaabka ilaahay qaataan ilaahay baana amray nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam zamanka markuu ka hadlayay al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya xilliga dilku uu badan yahay ee fitanku uu badan yahay ruuxa cibaadada laazima ay xaq u dulqaata ay xaq ku sabra nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu la mid yahay ruux aniga isoo hijrooday salaadi maqrib kadib xalay wiil yaro anigu waan dhalay oo madrasada Sheekh Ali Suufi dhigta baa wuxuu ugu yiri xalay qashii markaan ka imaanay aabow hadii lagu xiro ee dawladdu ku soo day weyso sida Roobo iyo Xasan Daahir Aways ya quraanka baray waxa weeyaan maanta dulmiga ka jira magaalada Muqdisho hadoo naqday ruuxi ku taliya umada Allah abuuray Allahi abuurtaana wuxuu u soo dejiyay dastuur iyo kitaab munazzal ah oo dhameystiran ay Allah iyo adoomadiisa laga dhaxbaxo ruuxi ku taliya hadoo dimbiila yahay dimbiga aniga galay saxaafada Soomaaliya iyo YouTuberiyada kilibiyadeeda qaatane kuwa khayrka u qaadanaya iyo kuwa u qaadanaya aniga in la dhibaateeyana waan garanaya Umar wuxuu yiri lastu bil khibbi wal khibbu yakhda'uni wuxuu yiri dhagarlowni ma dhagraya dadka maanta kilibiyadeeda meelaha wareejinaya ee isoo qaraya dhiiqa lugaha la gashay hooyaday aabahay oo mar hore dhintay ugu salaam tacsi horumaraysa anigu waan dhimanaya laakiin waxaan dhimanaya anigoo mid weyn la kulmaya kana rajeynaya cafi iyo janno iyo radihiisa laakiin adigu yar la kulmaysa hadaad dhimato maxaana ilaahay agtiisa ku yaala inta iska fiiri wallahi waxaan huwa malaha ilaahay agtiisa iyaalo inuu ilaahay agtiisa wax badan iyaalaan waxaan aaminsanahay jidkaan hadaan ilaahay kula kulmo inuu ilaahay raali iga naqanayo maalin iyo habeenna waxaan ku qaylineynaa in ummadu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ay qaataan ninka raba inuu igu cabsiyo ninka raba inuu igu dilo
ninka rabo inuu igu xiro waxaan leeyahay ha soo daahin anugu mar walba waa dhimanaya walikulli ummatin ajal. markay halkaas joogto saaxiibayaal sheekh salaad maxamuud oo loo yaqaano sheekh Shantaay ayaa 4 bari koor waxa uu soo daway muuqaal uu ku weeraray dagaalamayaasha ururka al-shabaab kaas oo ku sheegay in al-shabaab ay ummadina ka dhigeen sidoo kalena loo baahan yahay in al-shabaab isku meel looga soo wada jeesto. wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay markaasi qaataan markaasi kitaabka iyo sunnada Alle isagoo amray in kitaabada iyo sidoo kale maxkamadaha la geeyo kutubta si la isugu xukumo. markii ay halkaas joogto waxa dagaalamayaasha ururka al-shabaab xogaha qarsoon ee la helaya ay sheegayaan inay iskaga soo dhigeen askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo markaasina ay wicitaan kala daaleen. sidoo kale al-shabaab ayaa qaraxi ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ninkii qarxiyay qaraxaasi uu qabay tuutaha ciidamada isagoo markaasina qaraxa geystay. haddaba sheekh Salaad Maxamuud Shantaay oo YouTuber ah ayaa haatan wajahaya cabsi fara badan waxaana markaasi cabsidan uga imaanaysa dagaalamayaasha ururka al-shabaab. balse sheekh Shantaay ayaa sheegay in nin qabashaatiga dawladda oo wicitaan kala daalay. haddaba saaxiibayaal muxuu ahaa muuqaalka halista ahaa ee sheekh Shantaay uu ku weeraray dagaalamayaasha ururka al-shabaab waa kan ee daawasho wacan. shabaab ummadayni dhag bay ka dhigeen. shabaab inaan ka adkaano wallaahi waxay ku xiran tahay inaan inta xurowno kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan maxkamadaha dhiganaa. shabaab iyo daacish iyo wax lamida inaan ka xurowno iyo nin siyaasiya oo wadanka soo doontay xil iyo xoolo intaba inaan ka xurowno iyo mid diinta inaan ugu haystay nugu faragelinayo wallaahi waxay ku xiran tahay inaan ilaahay la heshiino. maalinkan ilaahay la heshiino ay aan dhahno allow abuurka sidaad u leedahay talada u leedahay taladana adigan kaaga dambaynaa waan dhargaynaa. abaar colaad qarax dil xoolaha inuu baad lagu qaato maalinkaasaan noogu dambaynayso. dawladihii waddanka iskaga dambeeyey 5 nin ayay wadaadaa ayay wax ka dhegaystaan oo la baxay majmaca hay-adda culummada Soomaaliyeed. ma dhaliilaan ceebahooda uma sheegaan yaa haaya nimankaasoo dhahaya reer Muqdisho dhibaato ayay ku jiraanay ummadda dhibka ha laga bixiyo. yaa haaya laba hayo. dadka maanta madaxda ama kuwa imaan doona waxay dantiina ku jirtaa wadaadada raba inay dhaliilaan wadaadada dhaliishiina sheegaya ay aan adduunyo niga rabin ay aan xil niga rabin ay wiila anugu dhalaan wataahay xil hal igu dhiibo amba safiir hal igaga dhigo amba agaasimaha maaliyadda hal igaga dhigo aan dhahaynin kuwaasa maanta xilkiinu ku jira kuwaasa maanta dheeftiina ku jirtaa 15 sano waxaan ku jirnaa waan cambaaraynayna asqaranaa loo sameeyay asqaran reer Muqdisho dhaawacooda iyo boogtooda ma yaani ma bugsoohay mana dhayayo ummadu waa daashay ma ogsoontihiin markii musharax madaxweyne oo xaflad sameeyay dadka u sacabtumay wallaahi Muqdisho wadaad iga aqoon badan dadka dhibaatada haysatay inay jirin dadku iyagoo cabsanaya oo murug guryahoodu taalo oo qofku qalbiga uu ka gubanaya ay inay sacabtumaan. mid baa wiilkiisa dulmi ku xiran yahay hoolka ayuu fadhaa wuu ku sacabtumaya ma ogtahay. mid baa wiilkiisa wuxuu ku xiran yahay Suudaan iyo Masar iyo Talyaaniga wuu ku sacabtumaya soo meesha fadho oo murugsan. waxaan u baahannahay dad ilaahay janno ka doonaya oo ummadda badbaadiyo. waxaan maanta huba dad ilaahay janno ka doonayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo golahiisa wasiirada iyo duqa Muqdisho iyo gudoomiyaashiisa oo ilaahay janno iyo cafis ka doonaya hadday wadankan taladiisa qabtaan wadankan 6 bilood buu wuxuu ku noqonayaa nadiif 6 bilood. maxkamadaha iyo garsoorka aan kitaabka ilaahay iyo sunnaha dhigano nabiga sallallahu alayhi wasallam baa noo dardaarmay ummatul islaam nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu u dardaarmay dardaarimkiisa sidaan ugu dhacay wuxuu yiri hadaatihin bulshada ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bulshada afka kaga dhawaaqday ay uurka ka rumaysay ay adimaha ka sameysay hadaatihin bulshada sidaasa waxaan ni dardaarmo leeyahay laba shay ma burburaysaan cadawgiina ni qaybin maayo
abaar iyo xalay nin baa isoo wacay dhib weyn buu ii geystay waxaan ku balan qaadayaa buu yiri inaan dib lagu arag wallahi adigaan lagu arkaynin shabaab umadayni dhag bay ka dhigeen shabaab inaan ka adkaano wallahi waxay ku xiran tahay inaan inta xurowno kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan maxkamadaha dhigana sheekh salaad maxamuud oo loo yaqaano sheekh shantaay ayaa maalmo ka hor hanjabaad culus u diray dagaalamayaasha ururka al-shabaab isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haatan wuu oynayaa waxayna al-shabaab isaga soo dhigeen dawladda iyaga oo wacad ku maray inay khaarijin doonaan hanjabaadda ayaa ku soo aadaysa xilli sheekh aadan cabdi warsame sheekh aadan sunne uu sheegay inay jiraan culimo gaalowday oo dawladda markaasi la socda waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkii la yaabka lahaa ee sheekh shantaay uu ugu hanjabay al-shabaab iyo sidoo kale muuqaalkii isagoo ilmeynaya uu soo duubay xalayto haddaba saaxiibayaal aynu ka qayb qaadanno sidii aynu uga qayb qaadan lahayd badbaadinta sheekh shantaay alle ayaa wax badbaadsho muuqaalkan layg fara badan saara saaxiibayaal si uu u gaado hay-adaha ammaanka Soomaaliya ayna ninkaasi maskiinka ah ee wadaadka ammaankiisa ula wareegaan layg fara badan oo ku dhacda muuqaalkan waxayna ga caawin kartaa inuu gaaro hay-adaha ammaanka Soomaaliya saaxiibayaal laygta haddii ay tahay markii kugu horeysana soo booqato waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa YouTube-kana subscribe saartid gambalelkana furati kuma hasanid waxba yaana waradin ku daalina saaxiibayaal waxaan la wadaagi doonaa muuqaal la yaab leh sheekh shantaay oo cadeeyay in loo hanjabay sidoo kale uu qarka u saaran yahay in la khaarijiyo ee daawasho wacan xalay nin baa isoo wacay dhib weyn buu ii geystay wuxuu igu yiri waxa tahay argagixiso waxa leedahay indhaha argagixisada waxaan ku balan qaadayaa buu yiri inaan dib lagu arag wallahi adigaan lagu arkaynin shaatiga dawladnimada ay aad umada ugu cagajugleynayso kitaabka ilaahay ku difaac umada daashay ee mobeelada lagu dilaya ee baad laga qaadaya ee ilmahooda asayda loo saarayo ee caruurtooda agoomooweyso shaarka kuwa ku difaac ilaahay baa janno kugu siinayay waxaan rabaa inaan umada u sheego anigu meelaan ka naqdo ma joogi waxaan baraha bulshada u galay umada muslimka inay kitaabka ilaahay qaataan ilaahay baana amray nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam zamanka markuu ka hadlayay al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya xilliga dilku uu badan yahay ee fitanku uu badan yahay ruuxa cibaadada laazima ay xaq u dulqaata ay xaq ku sabra nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu la mid yahay ruux aniga isoo hijrooday salaadi maqrib kadib xalay wiil yaroo anigu waan dhalay oo madrasada Sheekh Ali Suufi dhigta baa wuxuu ugu yiri xalay qashii markaan ka imaanay aabow hadii lagu xiro ee dawladdu ku soo day weyso sida Roobo iyo Xasan Daahir Aways ya quraanka baray waxa weeyaan maanta dulmiga ka jira magaalada Muqdisho haddoo naqday ruuxi ku taliya umada Allah abuuray allihii abuurtaana wuxuu u soo dejiyay dastuur iyo kitaab munazzal ah oo dhameystiran ee Allah iyo adoomadiisa laga dhaxbaxo ruuxi ku taliya hadduu dimbile yahay dimbiga aniga galaya saxaafada Soomaaliya iyo YouTuberyada kilibiyadeeda qaatane kuwa khayrka u qaadanaya iyo kuwa u qaadanaya aniga in lay dhibaateeyana waan garanaya Umar wuxuu yiri lastu bil khibbi wala al khibbu yakhda'uni wuxuu yiri dhagarlowni ma dhagraya dadka maanta kilibiyadeeda meelaha wareejinaya ee iisoo qaraya dhiiqa lugaha la gashay hooyaday aabahay oo mar hore dhintay ugu salaam tacsi horumaraysa anigu waan dhimanayaa laakiin waxaan dhimanayaa anigoo mid weyn la kulmaya kana rajeynaya cafi iyo janno iyo radihiisa laakiin adigu yaad la kulmaysa hadaad dhimato maxaana ilaahay agtiisa ku yaala inta iska fiiri wallahi waxaan huwa malaha ilaahay agtiisa iyaalo inuu ilaahay agtiisa wax badan iyaalaan waxaan aaminsanahay jidkaan hadaan ilaahay kula kulmo inuu ilaahay raali iga naqanayo maalin iyo habeenna waxaan ku qaylinaynaa in ummadu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ay qaataan ninka raba inuu igu cabsiyo
ninka rabo inuu igu dilo ninka rabo inuu igu xiro waxaan leeyahay ha soo daahin anugu mar walba waa dhimanaya walikulli ummatin ajal. markay halkaas joogto saaxiibayaal sheekh salaad maxamuud oo loo yaqaano sheekh Shantaay ayaa 4 bari ka hor waxa uu soo daway muuqaal uu ku weeraray dagaalamayaasha ururka al-shabaab kaasi oo ku sheegay in al-shabaab ay ummaddiina ka dhigeen sidoo kalena loo baahan yahay in al-shabaab isku meel looga soo wada jeesto. wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay markaasi qaataan markaasi kitaabka iyo sunnada Alle isagoo amray in kitaabada iyo sidoo kale maxkamadaha la geeyo kutubta si la isugu xukumo. markii ay halkaas joogto waxa dagaalamayaasha ururka al-shabaab ama xogaha qarsoon ee la helaya ay sheegayaan inay iskaga soo dhigeen askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo markaasina ay wicitaan kala daaleen. sidoo kale al-shabaab ayaa qaraxi ka dhacay magaalada Beledweyne waxa ninkii qarxiyay qaraxaasi uu qabay tuutaha ciidamada isagoo markaasina qaraxa geystay. haddaba sheekh Salaad Maxamuud Shantaay oo YouTuber ah ayaa haatan wajahaya cabsi fara badan waxaana markaasi cabsidan uga imaanaysa dagaalamayaasha ururka al-shabaab. balse sheekh Shantaay ayaa sheegay in nin qabashaatiga dawladda oo wicitaan kala daalay. haddaba saaxiibayaal muxuu ahaa muuqaalka halista ahaa ee sheekh Shantaay uu ku weeraray dagaalamayaasha ururka al-shabaab waa kan ee daawasho wacan. shabaab ummadayni dhag bay ka dhigeen. shabaab inaan ka adkaano wallaahi waxay ku xiran tahay inaan inta xurowno kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan maxkamadaha dhiganaa. shabaab iyo daacish iyo wax lamida inaan ka xurowno iyo nin siyaasiya oo waddanka usoo doontay xil iyo xoolo intaba inaan ka xurowno iyo mid diintayna nagu haystay nagu faragelinayo wallaahi waxay ku xiran tahay inaan ilaahay la heshiino. maalinkan ilaahay la heshiino ay aan dhahno allow abuurka sidaad u leedahaa talada u leedahay taladana adigan kaaga dambaynaa waan dhargaynaa. abaar colaad qarax dil xoolaha inuu baad lagu qaato maalinkaasaa noogu dambaynayso. dowladihii waddanka iskaga dambeeyey 5 nin ayay wadaadaa ayay wax ka dhegaystaan oo la baxay majmaca hay-adda culummada Soomaaliyeed. ma dhaliilaan ceebahooda uma sheegaan yaa haaya nimankaasoo dhahaya reer Muqdisho dhibaato ayay ku jiraanay ummadda dhibka ha laga bixiyo yaa haaya laba haya. dadka maanta madaxda ama kuwa imaan doona waxay dantiina ku jirtaa wadaadada raba inay dhaliilaan wadaadada dhaliishiina sheegaya ay aan adduunyaniga rabin ay aan xilniga rabin ay wiila anugu dhalaan wataahay xil ha laygu dhiibo amba safiir ha laygaga dhigo amba agaasimaha maaliyadda ha laygaga dhigo aan dhahaynin kuwaasa maanta xilkiinu ku jira kuwaasa maanta dheeftiinu ku jirtaa. 15 sano waxaan ku jirnaa waan cambaaraynaynaa asqaranaa loo sameeyey asqaran reer Muqdisho dhaawacooda iyo boogtooda ma yacni ma bugsoohayo mana dhayayo. ummaddu waa daashay ma ogsoontihiin markii musharax madaxweyne oo xaflad samaysta dadka u sacabtumaayo wallaahi Muqdisho wadaad iga aqoon badan dadka dhibaatada haysata inayna jirin. dadku iyagoo cabsanaya oo murug guryahoodu taalo oo qofku qalbiga uu ka gubanaya ay inay sacabtumaan. mid baa wiilkiisa dulmi ku xiran yahay hoolka ayuu fadhaa wuu ku sacabtumaya ma ogtahay. mid baa wiilkiisa wuxuu ku xiran yahay Suudaan iyo Masar iyo Talyaaniga wuu ku sacabtumaya soo meesha fadho oo murugsan. waxaan u baahannahay dad ilaahay janno ka doonaya oo ummadda badbaadiyo. waxaan maanta hubaa dad ilaahay janno ka doonayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo golahiisa wasiirada iyo duqa Muqdisho iyo gudoomiyaashiisa oo ilaahay janno iyo cafis ka doonaya hadday waddankan taladiisa qabtaan waddankan 6 bilood buu wuxuu ku noqonayaa nadiif 6 bilood. maxkamadaha iyo garsoorka aan kitaabka ilaahay iyo sunnaha dhigano nabiga sallallahu alayhi wasallam baa noo dardaarmay ummatul islaam. nebigu sallallahu alayhi wasallam markuu u dardaarmaye dardaarimkiisa sidaan ugu dhacay wuxuu yidhi haddaad tihiin bulshada ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah. bulshada afka kaga dhawaaqday ee uurka ka rumaysay ee addimaha ka samaysay haddaad tihiin bulshada sidaasa waxaan nii dardaarmo u leeyahay 2 shay. ma burburaysaan
cadowgiina ni qaybin maayo abaar iyo xalay nin baa isoo wacay dib weyn buu ii geystay waxaan ku balan qaadayaa buu yiri inaan dib lagu arag wallahi adigaan lagu arkaynin shabaab umadayni dhag bay ka dhigeen shabaab inaan ka adkaano wallahi waxay ku xiran tahay inaan inta xurowno kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan maxkamadaha dhiganaa sheekh salaad maxamuud oo loo yaqaano sheekh shantaay ayaa maalmo ka hor hanjabaad culus u diray dagaalamayaasha ururka al-shabaab isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haatan wuu oynayaa waxayna al-shabaab isaga soo dhigeen dawladda iyaga oo wacad ku maray inay khaarijin doonaan hanjabaadda ayaa ku soo aadaysa xilli sheekh aadan cabdi warsame sheekh aadan sunna uu sheegay inay jiraan culimo gaalowday oo dawladda markaasi la socda waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkii la yaabka lahaa ee sheekh shantaay uu ugu hanjabay al-shabaab iyo sidoo kale muuqaalkii isagoo ilmeynaya uu soo duubay xalayto haddaba saaxiibayaal aynu ka qayb qaadanno sidii aynu ka qayb qaadan lahayd badbaadinta sheekh shantaay alle ayaa wax badbaadsho eh muuqaalkan layg fara badan saara saaxiibayaal si uu u gaado hay-adaha ammaanka Soomaaliya ayna ninkaasi maskiinka ah ee wadaadka ammaankiisa ula wareegaan layg fara badan oo ku dhacda muuqaalkan waxayna ka caawin kartaa inuu gaaro hay-adaha ammaanka Soomaaliya saaxiibayaal laygta haddii ay tahay markii kugu horeysana soo booqato waxaan si naxariista kaaga codsanaynaa YouTube-kana subscribe saartid gambaleelkana furati kuma hasanid waxba yaana waradin ku daalina saaxiibayaal waxaan la wadaagi doonaa muuqaal la yaab leh sheekh shantaay oo cadeeyay in loo hanjabay sidoo kalena uu qarka u saaran yahay in la khaarijiyo ee daawasho wacan xalay nin baa isoo wacay dib weyn buu ii geystay wuxuu igu yiri waxa tahay argagixiso waxa leedahay indhaha argagixisada waxaan ku balan qaadayaa buu yiri inaan dib lagu arag wallahi adigaan lagu arkaynin shaatiga dawladnimada ay aad umada ugu cagajugleynayso kitaabka ilaahay ku difaac umada daashay ee mobilada lagu dilaya ee baad laga qaadaya ee ilmahooda asaayda loo saarayo ee caruurtooda agoomoweyso shaarka kuwa ku difaac ilaahay baa janno kugu siinaye waxaan rabaa inaan umada u sheego anigu meelaan ka naqdo ma joogi waxaan baraha bulshada u galay umada muslimka inay kitaabka ilaahay qaataan ilaahay baana amray nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam zamanka markuu ka hadlayay al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya xilliga dilku uu badan yahay ee fitanku uu badan yahay ruuxa cibaadada laazima ay xaqa u dulqaata ay xaqa ku sabra nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu la mid yahay ruux aniga iisoo hijrooday salaadi maqrib kadib xalay wiil yar oo anigu aan dhalay oo madrasada Sheekh Ali Suufi dhigta baa wuxuu ugu yiri xalay qashii markaan ka imaanay aabow haddii lagu xiro ee dawladdu ku soo day weyso sida Roobo iyo Xasan Daahir Aways iyo quraanka baray waxa weeyaan maanta dulmiga ka jira magaalada Muqdisho hadduu naqday ruuxi ku taliya umada Allah abuuray allihii abuurtaana wuxuu u soo dejiyay dastuur iyo kitaab munazzal ah oo dhameystiran ee Allah iyo adoomadiisa laga dhaxbaxo ruuxi ku taliya hadduu dambi leeyahay dambiga aniga galaya saxaafadda Soomaaliya iyo YouTuberyada kilibiyadeeda qaatane kuwa khayrka u qaadanaya iyo kuwa u qaadanaya aniga in la dhibaateeyana waan garanaya Umar wuxuu yiri lastu bil khibbi wala al khibbu yakhda'uni wuxuu yiri dhagarlowni ma dhagraya dadka maanta kilibiyadeeda meelaha wareejinaya ee iisoo qaraya dhiiqa lugaha la gashay hooyaday aabahay oo mar hore dhintay ugu salaam tacsi horumaraysa anigu waan dhimanayaa laakiin waxaan dhimanayaa anigoo mid weyn la kulmaya kana rajeynaya cafi iyo janno iyo radihiisa laakiin adigu yaad la kulmaysaa hadaad dhimato maxaana ilaahay agtiisa ku yaala inta iska fiiri wallahi waxaan huwa malaha ilaahay agtiisa iyaalo inuu ilaahay agtiisa wax badan iyaalaan waxaan aaminsanahay jidkaan hadaan ilaahay kula kulmo inuu ilaahay raali iga naqanayo maalin iyo habeenna waxaan ku qaylinaynaa in ummadu kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ay qaataan
ninka rabo inuu igu cabsiiyo ninka rabo inuu igu dilo ninka rabo inuu igu xiro waxaan leeyahay ha soo daahin anugu mar walba waa dhimanaya walikulli ummatin ajal. markay halkaas joogto saaxiibayaal sheekh salaad maxamuud oo loo yaqaano sheekh Shantaay ayaa 4 bari ka hor waxa uu soo daway muuqaal uu ku weeraray dagaalamayaasha ururka al-shabaab kaasoo ku sheegay in al-shabaab ay ummaddiina ka dhigeen sidoo kalena loo baahan yahay in al-shabaab isku meel looga soo wada jeesto. wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay markaasi qaataan markaasi kitaabka iyo sunnada Alle isagoo amray in kitaabada iyo sidoo kale maxkamadaha la geeyo kutubta si la isugu xukumo. markii ay halkaas joogto waxa dagaalamayaasha ururka al-shabaab ama xogaha qarsoon ee la helaya ay sheegayaan inay iskaga soo dhigeen askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo markaasina ay wicitaan kala daaleen. sidoo kale al-shabaab ayaa qaraxi ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ninkii qarxiyay qaraxaasi uu qabay tuutaha ciidamada isagoo markaasina qaraxa geystay. haddaba sheekh Salaad Maxamuud Shantaay oo YouTuber ah ayaa haatan wajahaya cabsi fara badan waxaana markaasi cabsidan uga imaanaysa dagaalamayaasha ururka al-shabaab balse sheekh Shantaay ayaa sheegay in nin qabashaatiga dawladda oo wicitaan kala daalay. haddaba saaxiibayaal muxuu ahaa muuqaalka halista ahaa ee sheekh Shantaay uu ku weeraray dagaalamayaasha ururka al-shabaab waa kan ee daawasho wacan. shabaab ummadayni dhag bay ka dhigeen shabaab inaan ka adkaano wallaahi waxay ku xiran tahay inaan inta xurowno kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam aan maxkamadaha dhiganaa. shabaab iyo daacish iyo wax lamida inaan ka xurowno iyo nin siyaasiya oo waddanka soo doontay xil iyo xoolo intaba inaan ka xurowno iyo mid diintayna nagu haystay nagu faragelinayo wallaahi waxay ku xiran tahay inaan ilaahay la heshiino. maalinkan ilaahay la heshiino ee aan dhahno allow abuurka sidaad u leedahaa talada u leedahay taladana adigan kaaga dambaynaa waan dhargaynaa. abaar colaad qarax dil xoolaha inuu baad lagu qaato maalinkaasaa noogu dambaynayso. dawladihii waddanka iskaga dambeeyey 5 nin ayay wadaadaa ayay wax ka dhegaystaan oo la baxay majmaca hay-adda culummada Soomaaliyeed ma dhaliilaan ceebahooda uma sheegaan yaa haaya nimankaasoo dhahaya reer Muqdisho dhibaato ayay ku jiraanay ummadda dhibka ha laga bixiyo yaa haaya laba hayo. dadka maanta madaxda ama kuwa imaan doona waxay dantiina ku jirtaa wadaadada raba inay dhaliilaan wadaadada dhaliishiina sheegaya ee aan adduunyaniga rabin ee aan xilniga rabin ee wiila anugu dhalaan wataahay xil halaygu dhiibo amba safiir halaygaga dhigo amba agaasimaha maaliyadda halaygaga dhigo aan dhahaynin kuwaasa maanta xilkiinu ku jira kuwaasa maanta dheeftiina ku jirta 15 sano waxaan ku jirnaa waan cambaaraynayna asqarana loo sameeyay asqaran reer Muqdisho dhaawacooda iyo boogtooda ma yaani ma bugsoohay mana dhayayo ummadu waa daashay ma ogsoontihiin markii musharax madaxweyne oo xaflad sameeyay dadka u sacabtumay wallaahi Muqdisho wadaad iga aqoon badan dadka dhibaatada haysatay inay jiraan dadku iyagoo cabsanaya oo murug guryahoodu taalo oo qofku qalbiga uu ka gubanaya ay inay sacabtumaan. mid baa wiilkiisa dulmi ku xiran yahay hoolka ayuu fadhaa wuu ku sacabtumaya ma ogtahay. mid baa wiilkiisa wuxuu ku xiran yahay Suudaan iyo Masar iyo Talyaaniga wuu ku sacabtumaya soo meesha fadho oo murugsan. waxaan u baahannahay dad ilaahay janno ka doonaya oo ummadda badbaadiyo. waxaan maanta hubaa dad ilaahay janno ka doonayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo golahiisa wasiirada iyo duqa Muqdisho iyo gudoomiyaashiisa oo ilaahay janno iyo cafis ka doonaya hadday waddankan taladiisa qabtaan waddankan 6 bilood buu wuxuu ku noqonayaa nadiif 6 bilood. maxkamadaha iyo garsoorka aan kitaabka ilaahay iyo sunnaha dhigano nabiga sallallahu alayhi wasallam baa noo dardaarmay ummatul islaam nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu u dardaarmay dardaarimkiisa sidaan u dhacay wuxuu yiri هداتهن بلشد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بلشد أفكا كغدا واغدي أي أوركا كرميسي أي أدمها كسميسي هداتهن بلشد سيداسا وحاني دردار مولي الله والشيء
ما بربريسان عدوغينا ني قيبين مايو أبار إيو